kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub. muuqaalkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa daraasad lagu ogaaday midka caafimaadka badan in marka uu qofku 45 sano kor u dhaafo uu tartiib u socdo iyo inuu socodka boobsiiyo. aanan gudagelin muuqaalkeena maanta daawadaha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inaad ku soo biirto barteena YouTube-ka oo aad subscribe saarto sidoo kale haddii aad ka heshay muuqaalkan aad like saarto si aan u ogaano bal kuwa ay yihiin muuqaalada ay saaxiibadu xiiseeyaan. mahadsanid. bini'aadamka ayaa ku kala gedisan dhanka socodka iyadoo aysan ku sii jirin marka uu qofku 40 kor u dhaafo ama uu 50 galo. laakiin daraasad cusub oo dhanka caafimaadka ah oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in farqi weyn uu u dhaxeeyo 45 jirrada ayarka u socda kolka ay lugaynayaan iyo kuwa socodka boobsiiya. daraasadan oo ay samaysay jaamacadda Duke University ee waqooyiga gobolka Carolina ee waddanka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in dadka da'doodu ka sarreysa 45 sano ee kolka ay soconayaan qunyar u socda ay halis ugu jiraan xanuuno badan oo ay ugu horeeyaan cudurrada maskaxda ku dhaca ee la yiraahdo dementia. waxa kale oo ay daraasadu tilmaamaysaa haddii qofku 45 sano gaara ama ka sare maro misana uu marka uu soconayo tartiib u dhaqaaqo ay tilmaam u tahay in qofkaasi uu gabow degdeg ah soo hayo wajigiisa iyo jirkiisana waayeelnimadu ay ka soo baxayso. khubarada jaamacadda Duke University ee waddanka Mareykanka waxay kaloo ogaadeen in dadka tartiib u lugeeya ay ka maskax cabir yar yihiin kuwa socodka boobsiiya. xitaa waxay daraasadu xaqiijinaysaa in tartiib u socdayaashu ay ka maskax firfircooni yar yihiin carruurta 3 sano jirka ah. daraasadan ayaa daba joogtay daraasad kale oo muddo fog lagu sameeyay waddanka New Zealand kadib markii baaritaan joogto ah lagu sameeyay 904 qofood oo isku waqti dhashay kuwaas oo baaritaan lagu sameynayay ilaa ay ka gaaraan da'da 45 sano. warbixintaas oo lagu daabacay JAMA Network Open ayaa waxaa ku jiray baaritaanada isugu jiray MRI oo lagu sameeyay dadkaasi iyadoo markii la baaray dadkaasi 45 jirrada gaaray inta tartiib u socota iyo inta socodka dadajisa la ogaaday in kuwa ayarka u socda ay maskaxdoodu ka duwan tahay dadka kale ee ay isku da'da yihiin iyadoo tijaabada maskaxdooda laga qaaday ay u muuqatay in maskaxdoodu ay ka duqsan tahay kuwa kale. isku soo wada duubo waxay labadan daraasadoodba xaqiijiyeen in qofka uu ka socod dheer yahay ama ka socod boobsiis badan yahay marka uu yar yahay in socodkaasi degdega ah uu ka anfacayo marka uu weynaado isla markaana ay gaashaan uga tahay gabowga. waxaa intaasi inooga eg warbixintii ka hadlaysay daraasad lagu ogaaday midka caafimaad badan in marka uu qofku 45 sano gaaro ama kor u dhaafo oo uu tartiib u socdo iyo in uu socodka boobsiiyo midka caafimaadka badan iyadoo aan ogaanay in uu caafimaad badan yahay in qofku mar waliba uu socodka boobsiiyo oo xitaa ay gaashaan uga tahay oo uu kaga gambanayo gabowga. haddii ay ku xiiso gelisay warbixintan fadlan haddii aadan hore noola joogin nagu soo biir oo subscribe saar barteena. mahadsanid.